aniga shalay gillinkii dambe iyo subaxaan intaba waxaan ka shaqaynaynay howlgallo ballaaran ka socdo Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan nimankii cadawga ahay deegaano badan ay gubeen ceelal tuulooyin badan ay gubeen ceelalkii duugeen baraagtii aaseen ateenooyinkii lagala xiriirayay jareen waa nimanku dalkan iyo dadkan cadow ku ah ummadda deegaankaas ku nooleeday xilliga adaga lagu jiro ee abaarta ayay haddana biyo la-aan iyadoo baad la-aan haayay ay haddana biyo la-aan ugu dareen xaqiiqdii nolol aad u adagaa ka jirto laba degmo degmada Matabaan iyo degmada Maxaas inta u dhaxaysa wixii tuulo ku yiilay isgaarsiintana waa ka jareen ceelashana waa ka duugeen waxaan ku mashquulsanay oo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka aan kala hadlaynay sidii dadkaas loogu gurma lahaay oo biyo dhaamin loogu samay lahaay waxaana aad u adag isgaarsiintii jareen dadkuna waxaad mooday noloshooda inta badan way ku xidheeday kaashka dalka waa ka sii yaraada waayaan EVC dadku wax ku kala gadanayeen EVC-na haddii ateenada la jaray oo mid walba oo shaqaynaynin say u kala gataan xataa waa adag tahay howlgallo ballaaran hadda ka socda insha Allah waxaan rajaynaynaa waqti dhow in maaragtay deegaanadaas dhibku ka dhacay la gaari karaayo oo wax badan laga qaban karaayo hadday tahay gurmashadii iyo hadday tahay in maaragtay dib loo dayactiro ceelashii iyo baraagihii ay duugeen howlgalkuna waa ballaaran yahay shaqo badan ka socota deegaano badan hadda laga xoreeyay waana lagu socon insha Allah haddii la raalli ka noqdo inta ka dhiman deegaanadan cadawga uu joogo in howlgal ballaaran loo safeeyo rajayna insha Allah haddii la raalli ka noqdo